ديار هوش عمر كمان دياره الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu saddexan waa Saciid Maxamed Cusmaan waxaa deganaa waddanka Norway gaar ahaan magaalada Stavanger. Stavanger ma niigi sheekeynaa waa magaalo roob badan waa koonfurta Norway ku taala. Joornaalka akhrinaa waxaa leh magaaladan deganaa Stavanger bisha September roobka weligeeda ma ka diin waxyaabaha waa marmarsi waa sababta wax soo gelin waa sabab maanta insha Allah waxaan rabaa inaan ila qabsado saddex waxaan rabaa inaan ila qabsado waxayna khusaysaa shaqada 14 sano 15 sano shaqada ka shaqeynaa waxyaabaha ka bartay dadka arkay sida shaqada loo siiyo sababta loogu diiday insha Allah inaan ila qaybsado rabaa saddex waxa isku soo gabagabeeyay ama saddex waxa u soo kala qaaday badanta aad u badanta sababaha shaqada lagu siinayo laakiin aniga saddexda wax ku fiicanta insha Allah shaqada waa lagu siinaa shaqada wax alla waxay tahay okay insha Allah midda koowaad waa qore waxaa isku dayaynaa waa qore saa u hilmaamin midda koowaad waa waqtiga waay waqtiga haddaa aqoonin oo balan Soomaali aad tahay ama balan Afrikaan sida dadka dhahan waa sida ugu dhaqsiyaha badan u bedeshaa haddii aan waqtiga aqoonin muu baahan inaad shaqo dalbatid qof oo balanta aqoonin qof shaqo siinaa ma leh balanta ama shakhsi waa waqti waa qofka aad tahay hadii kontraktigaada ku qoran yahay 8 subaxnimo shaqada soo gal 9 subaxnimo shaqada soo gal hadda hal daqiiqo soo daba martid waa qofka tahay waa shakhsiga tahay qof ku bedeli kara male hadda waqtiga aqoon qof shaqo wiiga kuwaad laga yaabo waa baraawa ku jirta bish kuwaad baraawa ku jirta waxa lagu fiirnaa waqtiga saa ku tahay waqtiga hadda ku fiicanta waqtiga laga yaabo inay shaqo ku siiyaan qaabka aad u dhaqantid iyo shakhsi ahaantaada waa wixii halaa ka dambeeya laakiin haddaa waqtiga aqoonin imtixaanka maalinta koowaad ku dhacda ama wiigii koowaad ku dhacda haddaad dulqaad leedahay halaa soo gaartid midda labaad waa aadaabta waay aadaab haddaa lahayn aadaab lahayn waxaa kuula talinaa waa midda ugu weyn waa shakhsiga ama qofkaa tahay ma wax koowaad maalinta koowaad la arkaa aadaabtaada qaabkaa tahay dadka Soomaalida dhalinyarada badankood waa qaana gabdhaha ma dhahay gabdhaha aad iyo aadaab leeyihiin akhlaaq leeyihiin dulqaad leeyihiin way naga degan yihiin gabdhaha maasha Allah khaasatan gabdhaha Soomaalida marka rag iyo khusaysa badankaada waa inaa aadaab leedahay waa inaa dhihin meeshaan way ka dansantay waa kala kicina aw muusigi aw bire aw qalabki ina iswaash muu baanid atoora ina meesha ka noqoto maalinta koowaad muu baanid wiigi koowaad muu baanid sanad koowaad xitaa muu baanid waa inaa isdejisaa aadhahdaa wiig okay meeshaan anaa ugu dambeeyey maanta shaqalaysiiyey shaqadaada waxay tahay inaa ogaatid shaqadeeda halaan waay boqolkiiba 200% qabana si fiican u qabana wax kale nidaada ma gelinays qaabka shaqada u qaban lahayd bas haddaa aqoonna ku adagta inaad weydiisid ceeb ma inaad weydiistid shaqada way ugu adagtahay haligu caawiya inaad dhahid ceeb maaha marka waa inaad isdejisaa wax yar waa inaad isdejisaa wallahi aadaabta waa tan keliya waay adoo waqtiga ku fiican haddaa aadaabta ku fiicnayn dadka saaxiibadaada ama dadka kula shaqeynayo tartiib ay kaaga laaxanayaan inay overtime kula shaqeeyaan ma rabaan inay waqtiga caadi kula shaqeeyaan ma rabaan haddii team work lagu shaqeynaa group haddii lagu shaqeynaa inay ku caawiyaan ma rabaan marka waxaa ku rajeynaa ama waxaa kaa codsanaa inaad isdejisid aad dhahayd anaa ugu dambeey meeshaan waxaa insha Allah waa inaad isdejiyaa waa inaad dadka si wanaag igu bartaan midda kale ugu dambeysa araba inaan ila wadaagan waxaa waaye insha Allah waa dulqaadka waay waa inaad dulqaad leedahay haddaa waqtiga ku fiican tahay aadaabta ku fiican tahay waa inaad dulqaadataa waa inaad dulqaad leedahay qof ku jecel male qaabkaa tahay iyo qaabka u dhaqantid qof walba oo kula shaqeey waa kula tartamkaada waa competitionkaada waa inaa ogaataa qof isku guri ka soo kacdeen maaha qof saaxiibo hore u aheedeen maaha meeshaan isku barteen waa inaa isdejisaa aad dulqaad leedahay oo ku cunsuriyeyna
laga yaabo inuu jirkaada jeclayn laga yaabo inuu kaftankaada jeclayn laga yaabo inuu qaabka u egta u jeclayn marka kuwaad dulqaad waa casusta dad qaar ay dhaayaan siciid adaaba dulqaad ka hadlaamay adaa dulqaad ka hadlaa alxamdulilah aad iyo aad isku bedelaysaa aabbu u noqday aad iyo aad mar hore maryana ay la yaabi jirtay shaqada ka soo cararay sheefka inaa soo dagaalna ka soo cararay marka sheef ku waaweyn ama meeshii soo waceen waxay u dhahan siciid hadaa shaqada imaan weyse iska ilaali waa inaa wada fadhiisanaa iska ilaali iyan jabeen markaas hadhe ma imaanaya shaqadiina waa meel xun youtube aan ii gelinaa internetkaan ii gelinaa adduunka dhan aa faafinaa dha inaa xuntiini way cabsadeen marka waxaa mar hore waay 15 sano ka hor waa 14 sano ka hor marka waa ku noqdo shaqada aad iyo aad isku dejiyey aad iyo aad u camal xumaa waa waqtiga shaqooyinka dadka loo baahnaa waa hadda camal waxa hadda sameyn lahaa hal maalin si joogi lahaa waa lii ceerin lahaa waa oge roob soo socdo marka waxaan ii rajeynaa insha Allah inaad isdejisaan dulqaad yeelataan gabar isla shaqeynayno waddan South Africa imaatay waxaa lagu cunsuriyay qaabkay u taalo ilkeeda dharkeeda wax walba lagu cunsuriyay xafiiskeeda kaligeeda isku soo xirtay markaas ay jiray soo bax banaanka ima la sheekayso ma luqadeeda ingiriiska ma jeclay dhigi jireen Norwegian waa Norwegian bas inay ku hadlaan jeceliin roob soo socdo marka gabadha sida loo cunsuriyayna qof walba cunsuriyayna qof xafiiskeeda marka loo galo ala weydiiyo tartiib ugu jawaabay saas maxaa si professional ugu jawaabay marka qaar inaa xafiiskeeda u galaa waxa dhigi jiray qof fiican aad dulqaad aad iyo aad u leh waa niyadan waxa iska dhigi jiray qofka qof Soomaali ah oo ahaan laga waran weligii qof Soomaali ah camal dulqaadkeeda ma arkin qof Soomaali ah oo ahaan lahaa waa la dagaalami lahayd Soomaali ayna waa la dagaalami lahayn adoo qof saa dharkeena iyo qaabka hadii lagu cunsureyna waa toos loo cunsureyna luqadda Norwegian-ka lagu xamana marka ugu dambeys qofka 3 sano ka dambe shaqada lacag badan la siiyay meel badan waa laga meel kale loo bedelay meel xafiis ka fiican loo bedelay Norwegian-kii wax yar baratay ma sha Allah meel fiican ugu dambeys kulay marka waxaan iga codsanaa waxa waay qaasatan gabdhiina wayna kaftan ka xanaaqin wayna cunsurinimada ka xanaaqin waa lagu cunsureyna weegi koowaad wayna bisha koowaad wayna si ogaataa way isku wadan matiin isku luqad matiin isku diin matiin isku qaab mu labisataan madax waa xijaabata ayagana ma xijaabtaan marka waa oo mashaahiga soo qaata abasuk marka insha Allah dulqaadka badiya wiili gabar waa waxyaabaha kaliya mataqaanaa heer ku gaaraysan waxaan rabaa inaa shaqada ku fiicantiin insha Allah shaqadiina ku fiicantiin la tartantiin wadamadan dariska noole wadamadan Yurubiyaanka la tartantiin waa ka aqoon badantiin waa ka fiicantiin khaasatan gabdhiina Soomaalida idinkoo 15 sano ka yar family dhan gacanta ku haaseen hooyo iyo family iyo aabo iyo walaal kulli gacanta ku haaseen marka wadanka imaateen waa oge way adagtay ina mataqaana idinkoo xijaab wadatiin shaqaysiin laakiin ما كان والله ما شاء الله قبل Soomaalida qaar Maryan camal xaaskii alxamdulillah 5 sano 6 sano meel ka shaqeynaysa weligay hal maalin ayadoo u gambinaysa ayadoo xanuunsan ay ahday saas dulqaadeed badankooda dulqaad badan yihiin ma sha Allah waxyaabaha aan ka hadlayo gabdhaha badankooda ma qusay waxa ka hadlaa bas dadkiina oo dulqaad ku xun yahay ina wax yar isdajisaan rabaa insha Allah في عنده غالي الحمد لله اي تكتيك على قصه اقوم سوما اي يوتيوبر تلاقيش يوتيوبر السلام عليكم شو عامل هون؟ الحمد لله شو بتصور شو بتسوي؟ يعني ما بسوينا فيلم ملك برافو عاسة صح والله الحمد لله خير سوا دير قلم واحد اوكي اوكي سومالا دير قلنا اساسا كهرباء والله هيك وقتي وحا صادقات له برافو والله اي برا يوتيوب كويس سوما معك بكره لعل ادو معك كسر هذه سعيد اسي هي بدي اشتري طياره اشتري وحده تكسر تقول يا باشا مالك صالو قدام اوه هذه والله لفت اللي ملاك هنا سعيد يعني عوض ما اشتري ولا طياره بشتري له سياره سياره عن حام مقعي وسعيد صاحب اسا وانا ناستي وكانوا ساسو اوكي وكيل سوما تقول سعيد اسي وعليكم السلام اي والله ايوه maxaa ku socotaan waxa u socotaa miya hay bro magacaada muxuu ahaa asad magaalo ma digantay
خلاص برشا وناكسن kanaalkayga haddaa ku cusubtay subscribe samee like saar waxyaabihii fikirkaada ama talooyinkaada hoos ku soo qor insha allah hadda kadib waa inaan wax kala baranaa waa inaan wax isla wadaagnaa duruumaha korka qaylnaa si fiican wax muu maqli marka khayr iskugana insha allah